بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا kusoo dhawaada video cusub oo aan uga hadlayno faa'iidooyinka uu leeyahay wax akhriska iyo sida aad u samaysan kartid caada wax akhris. Videogan laba qaybood oo gaagaaban baan u kala qaadi doonaa oo qaybta koowaad ay tahay faa'iidooyinka wax akhriska, qaybtaas labaadna ay tahay saddex caado oo wax akhris oo haddaa yeelatid oo aad ku akhrin kartid buugaag fara badan. Midda koowaad oo waa faa'iidada koowaad ah waxaan ku bilaabi lahaa horta diinteena islaamka aad bay u dhiirigelinaysaa wax akhriska taasna waxaa ku tusaysaa waxay ugu horeeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam kusoo dega wuxuu ahaa aayadda quraanka ah iqra akhri uu malakul jibriil ku leeyahay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam. Taas waxay ku tusaysaa ahmiyadda dheeraadka ah ay siinaysa diinta islaamka qofka inuu wax akhriyo waxna akhrin karo. Akhrisku waa aasaaska aqoonta iyo barashada. Ummad kastana waxay ku hormartaa inta ay leegyahay wax akhriskooda. Halbeega adduunka ummadaha lagu cabiro waxa waaye imisa buug bay akhriyaan, imisa baa literate oo wax akhrisa ummadooda. Halbeegyada adduunka dadka lagu kala cabiro ay ku jirtaa. Sidoo kale barashada cilmiga waxaa khasab ah qofka horta marka ugu horeyso inuu wax akhrin karo. Haddii aadan wax akhrin karin oo aadan kicin karin oo luqaday doonto ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama Ingiriis ha noqoto ama Carabi noqoto oo aadan akhrin karin way adag tahay in aad ka faa'iidaysato inaad aqoon iyo cilmi dheeraad ah barato. Sidaas darteeda diinteena islaamka waajib waxay ka dhigaysaa qofka inuu cilmi raadsado, cilmi barto, siiba cilmiga diinta ah. Sababta waa maxay? Aasaaska ugu horeeya aba waxay tahayba wax akhriska. Si aan ubadkeena iyo annaga nafteena aan muxuu ahaa ugu abaabino waxa aad iyo aad u wanaagsan qofka mar walba idee wax akhriska aad wax akhriskaaga u hormarin kartaa oo caado wax akhris ah u yeelan kartaa. Okay, faa'iidada labaad qaybtan oo aan rabo inaan uga hadlo ayadoo si kooban ahna waxa waaye wax akhriska waa quudinta maskaxda. Sida jirkaaga uu ugu baahan yahay cunto nafaqo leh oo aa cuntid, maskaxdaada waxaa nafaqeeya wax akhriska. Akhrinta maskaxda ayay kobcisaa. Sidoo kale qofka wax akhriya inta badan uu ka go'aan fiican yahay go'aamada majaalo badan oo kala duwan oo wax badan ah buu wax ka fahmayaa. Dad badan oo kala duwan dunida noocyada ay u nool yihiin inuu wax ka akhriyo uu yaqaan ay u badan tahay. Sidoo kale dadkan adduunka madaxda ka ah ee shirkadaha ugu sareeya maqashaa magacyadooda inta badan madaxda ka ah CEOska lagu tilmaamo waxaa lagu leeyahay average ahaan ama celcelis ahaan waxay akhriyaan 60 buug. 60 buug haddaa dhahdid bishii qofkaas waxaa ku aadaysaa ugu yaraan 5 buug. Waxaa isweydiin kartaa 5 buug bil ma lagu akhrin karaa? Okay, dadka qaar hadda waxayba dhahaanba buug oo 300 oo page ah ama 200 oo page ah waaba inaad ku dhammaysaaba isbuuc. Ma ahan micnaheeda maalinkii dhan inuu qofkaas meel fadhinaayo. Waxaa laga yaabaa saacad maalinkiisa ah ama 45 mirir oo ka mid ah inuu ku dhameeyo uu ku akhriyay qaybtii maalinkaas. Sidoo kale faa'iidada saddexaad majaal kasta oo aad rabtid waad baran kartaa haddii caado wax akhris oo wanaagsan aa leedahay. Haddaa rabtid inaa muxuu ahaa tusaale ahaan aad noqotid qof macallin ah waa inaad akhrisaa buugaag badan oo macallinimada iyo ku saabsan iyo research iyo cilmi baarisyo badan. Haddaa rabtid inaad noqotid politician oo siyaasi inaad noqotid waxaa ku qasban tahay inaad akhrisid wax badan oo ku saabsan taariikhda dalkaasa, wax badan oo ku saabsan majaalada siyaasadaha iyo geopoliticska adduunka. Sidoo kale haddii aad arday tahay oo aad meelo gooniya xiiseynaysa ama mustaqbalka is leedahay waxaana rabaa inaan barto ka soo qaad haddaa rabtid inaad mustaqbalka ku takhasusid sidoo kale dietitian isku day inaad buugaag badan oo dietka iyo waxaas ka sheekeynaya akhrisid. Haddaa rabtid inaad sidoo kale caafimaad isku day inaad aasaaska buugaag badan oo caafimaad ay ka sheekeynaya aad akhrisid. Waxaas waxay kaa saacidaysaa
ma ahan cilmigan markaas akhrisa inuu madaxaaga degayo oo aad wax walba aqoonteeda oo dhammaystiran u yeelanayso. Aqoomaha qaar waa u baahan tahay qof macallin ah oo ku hago oo wax walba kuu sheega, siba marka ay practical tahay. Balse laakiin adiga waxay ku gelinaysaa dhiirigelin ah inaad wax kastana akhrin kartid, wax kastana adiga aad isbari kartid oo majaal walba ku saabsan. Tusaale ahaan, kasoo qaad maanta haddii uu ku dhaho waxaad buuggan qoray nin 30 sano cilmi baaris ka sameynaya majaalkan, adigana aa majaalka xiiseynaysid. Waxa ugu horeeya kugu soo dhacayo waxa waaye, okay, waxaan u baahanahay inaan 30kaas sano qofkan ka faa'iidaysto. Inta badan buugaagta la qoro qofka qoraaga ah waqti dheer uu geliyaa. Ma ahan inay maalin, 2 maalin, 3 maalin uu ku qoray. Waxaa laga yaabaa editiono badan oo dadka qaar ayna weligood arkin oo kala duwan inuu buuggaas soo maray. Maalin walba uu qayb ka bedelayo, maalin walba uu cilmi baaris dheeraad ah kusoo darayay. Adiga intaasaa waxaa ku helaysaa waqti yar oo kooban ama saacado ah, ama haddii uu kugula dheeraado buuggaas maalimo ah. Talada ugu wanaagsan oo marka uu qofku siin lahaa haddii uu buug kusoo qoray, aniga waxaan odhan lahaa waa wadada ugu fiican oo wax lagu akhristo oo waxna lagu barto. Okay, marka qaybta aan u gudubno sidee u yeelan kartaa caado wax akhris. Mida koowaad horta waxaa u baahan tahay inaad xulato majaalka aad rabtid inaad wax ka baratid. Haddii ay tahay majaalo kala duwan, 2 majaal ama 3 majaal kusoo kooban ku dhihi lahaa, buugaagteeda soo iibso haddaad jeceshahay buugaagta oo physicalka oo la akhriyo. Haddii aad jeceshahay sida digitalka ku akhri, ama Kindle ama audio bookskaaga dhegeyso, sida aad rabtid, midda aad rabtid adiga sii xadid inta buugaag aad rabtid inaad akhrisid sanadkaas ama bilahaas. Okay, midda labaad oo caado wanaagsan aad ku samaysan kartid oo wax akhris, halkan waxa weeye waqti u astay aad wax akhrisid iyo goob aad wax ku akhrisid u astay. Okay, meeshan waxaan goobta u leeyahay qofka haddii uunan u baran inuu wax akhriyo isagoo gaari saaran ama meel kala jooga ama asxaabtiisa la jooga, way adag tahay inuu dhaqankii isla markiiba bedelo. Laakiin haddii marka ugu horeysa aad dhaqankaaga oo wax akhris aad soo kobcisay, meel walba aad joogto wax waa ku akhrin kartaa. Marka hadda qaybta waqtiga iyo goobta waxaan u kala qaadi lahaa dhowr nooc. Qaybta koowaad, waxaad samaysataa meel ama goob shanqarta ay ku yar tahay, iftiin fiican leh, oo uunan oolin TV ama aynan asxaab badan oo ku wareerinaya aynan joogin. Laptopkaagana uuna ka shidnayn meeshaas agteeda, ama telefoonkaaga haddii aynan ahayn laptopkaaga telefoonka kuwa aad wax ka akhrinaysid. Sidoo kale haddii ayba yihiin xitaa kuwa aad wax ka akhrinaysid oo buug aad ku akhrinaysid, laptopkii telefoonka silent mode ka dhig. Siba computerka oo kale internetka ka jar. Haddii uu mobilkaagana yahay, silent mode saaro, internetkana ka jar ama flight mode saaro. Waxaan intaas kuu leeyahay waxaa hadhow kaa kala qasaya waqtigii aad wax akhrin lahayd qofku soo wacay ama notification mobilkaaga kusoo dhacay. Okay, sidoo kale marka aad bilaabaysid weliba caado ka dhigo, aan ku dhihi lahaa midaan 25 mirir ama 30 mirir ka badan ha akhrinin. Weliba timer ku xiro, mobilkaaga geli. Haddii uu mobilkaaga uunan ahayn, wayba kasii fiican tahay oo book physical aad akhrinaysid, 20 daqiiqo 30 daqiiqo midka aad jeceshahay ku xiro. Mobilkaaga silent saar, vibration ka qaad, meel fog iska dhig oo aad ka maqlaysid markuu 25taas daqiiqo ama 30kaas daqiiqo ay dhamaadaan, buuggaaga inaad akhrisid kula dhaqaaq. Haddii aad tahay dadka oo qofka objectivekiisa uu yahay inuu buugga hal maalin uga baxo, ayadana okay waaye, telefoonkaaga iska fogey, buuggaaga wada akhri. Laakiin inta badan cilmigu wuxuu ku fiican yahay inaad jank ama qayb u qaadatid. Waxaan qaybta aan u wadaa waxa waaye, waxay ku fiican tahay waxa inay yar yihiin laakiin aad si joogtayn ah aad samaysid. Way jirtaa dadka inay xamaasadoobaan ay dhahaan maanta buuga akhrinaya oo hal maalin buug mise 2 maalin uga tuuro. Laakiin way adag tahay qofkaas hal buug inuu ku akhriyo 30 cisho, isbuuc, 10 cisho oo isku wada xigta ah, isku saacad ah, isku waqti ah. Aad ay u adag tahay. Marka joogtayntaasna aad ay ku anficaysaa. Marka tan saddexaad,
waxaad akhrisaa buugaagta ku xiiso gelinaya. Waxaa laga yaabaa buug inaad soo gadatid saacadda ugu horeysa, labada maalin ee ugu horeysa oo 30 daqiiqo markaa akhrisa, haddii aad dareentid buuggaas inuuna ku xiiso gelinaynin, ani taladeeda waxaa waaye naftaada ha khasbin, buuggaas meel iska dhig, mid kale soo qaado akhri. Ma u baahnid inaad naftaada ku qasabtidba haddii aadan ama micnihii ama wixii uu xambaarsanaa ama aadan jeclaysan ama aadan waxa aad rabta aadan oo wanaagsan aadan ka arkaynin. Waayo buugaagta qaar dad kala duwanaa qoray, qoraagan inuu audience gaar ah u qoraa laga yaabaa dad gooniga inay akhriyaan oo adigana dadkaas aadan ka mid ahayn. Inta badan buugaagta laakiin la qoro waa buugaag adduunka dhan loogu talagalo qof walba inuu akhrin karo. Aan kusoo gabagabeeyay videogan aniga sida aan ku bilaabay wax akhriskayga. Oran maayo qof wax akhriska aad ugu dheereeyaan ahay, wax walbaan akhriyaa. Laakiin waxaan isku dayaa sanad walba ugu yaraan inaan 12 buug 20 buug aan akhriyo ama aan dhegeysto, oo qaarkood inaan akhriyo haddana mar labaad aan sii dhegeystay u badanta, ama marka koowaad aan dhegeysto aan dibna ka akhriyo, labadaba way dhacdaa. 12 sano ka hor markii aan dugsiga sare dhiganayay, buugaagta aad ii xiiso geli jiray waxay ahaayeen buugaagta qoraayada Soomaalida ee qoreen sida sheekooyinka yaryar, mahmahyaha. buugaagta noocaasaan aad u jeclaa akhriskooda, oo buugaag yaryar oo lacag raqiisana la geli jiray oo bareygaaga aad ku gadan kartid. aad waxaan u jeclaan jiray aniga macalin maax macalin uu ahaa qoraaga weyn ee Soomaaliyeed. markaan jaamacadda bilaabay, waxyaalihii aadka aan u jeclaan jiray inaan wax ka barto waxay ahaan jireen horta sida wax loo barto, sida imtixaan loo barto, laiskugu diyaariyo, sida imtixaan loo baaso, waxyaalahaas ah. marka dhowr buugaan ka akhriyey xilliyadaas. buugaan aad u jeclaa oo koowaad wuxuu ahaa buug la dhaho How to Pass Exams. sidoo kale buugaagta qaar aan akhriyey laakiin oo aanan imtixaan iyo waxaas ku saabsanin waxay ka mid ahaa laba buug uu qoray nin Mareykan ah, qoraa Mareykan ah oo wasiirna soo noqday dhowr sano ka hor hadda. buug ka mida wuxuu ahaa magaciisa Gifted Hands, buug kalena waxaa la dhihi jiray Think Big. sidoo kale qoraaga weyn ee Mareykan ah isagana aan u maleynayo inuu ahaa How to Make Friends and Influence People, Rich Dad Poor Dad. buugaagtaas aad bay madaxayga saameyn ugu yeesheen. muxuu ahaa markii aan jaamacadda dhiganayo buugaagtii koowaad aan akhriyay ahaayeen oo ii kala furay wax akhriskii waxaas. siiba qaybta buugaagta Ingiriiska aan ku bilaabay ahayd anigoona xitaa luuqad si fiican iyo waxba aad aanan u aqoonin, balse qasab maaha luuqaddaa taqaanid haddii af carabi tahay af carabi wax ku akhri, buugaagta carabiga lagu qoray ama lagu tarjumay akhri. haddii Soomaali ay tahay buugaag badan oo hadda Soomaali lagu tarjumaa jira, ilaahay khayr ha siiyo, qoraayaal badan oo Soomaali ah xil iska saareen, kuwaas akhri. muhiimadda meeshan iyo videogan dhiirigelintiisa wuxuu ahaa inaan intaas sheego oo kooban, wax kale ma ahan. qofku wuxuu u baahan yahay inuu dhaqan wax akhris aan bulshadeena u yeelno, waayo inta badan waxaan u badannahay inaan nahay bulshada Soomaaliyeed haddaan nahay dad oral society ah. ma ahan inaan bedeleyno in ay dadkan hadalkooda iyo afka wax kusoo gudbiyaan, balse sidoo kale inaan wax akhriska iyo qoraalka iyo faafreebka inaan sameyno oo aan qofku uu wax un reebo. marka xitaa meel kafee ah fadhidid waxaa laga yaabaa inaadan arkinba hal qof oo kafeegiisa cabaya oo buug akhrinayo. waa tacajub, ama qof dhagaa wax ugu jiraan wax dhegeysanaya, marka laga reebo qof walba oo Facebook ama social mediaha aad ugu mashquulsan. marka khiyaarta aad iyo aad aa u mahadsantihiin inaa videoga sii dheereeya marabo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddii aad ka heshay videogan please subscribe, asxaabta kale lasii share garee.